bal qiyaas xabsi weyn oo aysan ku jirin dambiilayaal balse ay ku xiran yihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan, rag, dumar iyo caruur. Dadkani ma sugayaan in maxkamad la saaro, mana sugayaan in la sii daayo, waxay sugayaan oo keliya in loo adeegsado tijaabooyin cilmiyadeed oo ka baxsan bani'aadamnimada. Marka laga hadlayo xasuuqyadii dagaalkii labaad ee adduunka, inta badan maskaxdeenu waxay xasuusataa Naaziyiinta, laakiin isla xilligaasi dhanka bari ee qaaradda Aasiya waxaa ka socday mashruuc sir ah, waana xarunta lagu magacaabi jiray Cutubka 731. Waa maxay xaruntani? Yaa aas-aasay? Maxaase ka dhacay dhexdeeda oo dunida laga qariyay muddo 10 sano ah? Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Sanadka markuu ahaa 1932, dowladdii Japan waxay qabsatay gobolka Manchuria ee dalka Shiinaha. Qabsashadani ma ahayn mid ciidan oo keliya, waxay ahayd bilow riyo mugdi ah oo ay Japan doonaysay inay ku maamusho dhammaan qaaradda Aasiya iyo dunida inteeda kaleba. Si riyadaas weyn loo xaqiijiyo, madaxda Japan waxay aamineen inay u baahan yihiin hub ka khatarsan qoryaha iyo bambooyinka, isla markaana si aamusnaan ah u gumaadi kara ciidanka iyo shacabka. Waxay u baahnaayeen hub biologic ah. Halkan waxaa ka soo muuqday dhakhtar ciidan oo caqli badan balse arxan daran, kaas oo lagu magacaabi jiray Shiro Ishii. Ishii wuxuu aaminsanaa in hubka biologiga uu yahay furaha guusha dagaal kasta, wuxuuna xukuumadda Japan ka dhaadhiciyay inay dhaqaale xooggan ku bixiso mashruuciisa. Sidaas ayaa lagu aasaasay mashruucii sirta ahaa oo loo bixiyay Waaxda ka hortagga cudurrada faafa. Magacani wuxuu ahaa indha-sarcaad iyo dhagar loogu talagalay in lagu qariyo ujeeddada dhabta ah ee xaruntan. Waxaa laga dhisay deegaan Bingba oo u dhow magaalada Harbin ee dalka Shiinaha. Marka aad dibadda ka eegto, waxay u eg tahay xero ciidan iyo warshad caadi ah, laakiin gudaheeda waxay ahayd maxkamadda geerida ee casriga ah. Shaqaalaha xaruntan ee u dhashay dalka Japan ma aysan u arkin dadka maxaabiista ah ee halkaas la keeno sidii bini'aadan la siman. Si ay naftooda uga dhaadhiciyaan inaysan dembi samaynin, waxay maxaabiista ugu yeeri jireen magaca Maruta. Magacani oo micnihiisu yahay qoryo ama xaabo. Ereygan wuxuu ahaa mid si ula kac ah loo isticmaalay si looga tirtiro naxariista shaqaalaha. Qof kasta oo xaruntan la geeyo looguma yeeri jirin magaciisa, balse wuxuu lahaa lambar u gaar ah. 70% dadka halkan lagu tijaabinayay waxay ahaayeen dad deegaan ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha, halka inta kale ay isugu jireen dad ka soo jeeda Ruushka iyo Kuuriyada iyo sidoo kaleeto maxaabiis dagaal oo ajnabi ah. Mar haddii qofku uu galo iridda xarunta Bingfang, rajo kama qabin inuu mar dambe iftiinka qoraxda xorriyad ku arko. Tijaabooyinka halkaas ka dhacayay ma ahayn kuwa maskaxda bini'aadamka caadiga ah ay sawiran karto. Waxay ahaayeen kuwo dhaafay xadka mala'awaalka. Mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu naxdinta badnaa wuxuu ahaa tijaabada dhaxanta iyo qabowga. Dhakhaatiirtu waxay maxaabiista bannaanka u saari jireen xilliga qaboobaha ee aadka u daran dalka Shiinaha, iyagoo gacmaha iyo lugaha kaga shubi jiray biyo ilaa ay ka noqdaan baraf caadi ah. Kadib markii ay ogaadaan inuu baraf noqday, xubnihiin ay beeleen ay soo xareyn jireen si ay ugu tijaabiyaan tijaabooyinka qaar. Sababtoo ah waxay u adeegsan jireen tijaabooyinkaasi ciidanka ku sugan jiidda hore ee dagaalka. Dhulalkaasi waxay ahaayeen kuwo baraf badan. Haddii ciidanka uu soo gaaro dhaawac xilliga barafka, waxay halkan ka ogaanayaan qaabkii loo daaweyn lahaa askarigaas. Saas daraaddeed ayay dadkan u dhibaateyn jireen. Balse intaas kuma ekeen tijaabooyinka qaliinka. Qofka isagoo aan lagu durin wax daawo suuxdin ah ayaa lagu bilaabi jiray qaliinka. Dhakhaatiirta Cutubka 731 waxay ku doodi jireen in daawada suuxdinta ay bedeli karto natiijada tijaabada, isla markaana ay faragelin ku samaynayso xaaladda dabiiciga ah ee uu xubnaha jirka dareemayo xilliga qaliinka la samaynayo. Hadafka ugu weyn ee Shiro Ishii wuxuu ahaa inuu abuuro hubka gumaadka guud ee abid ugu halista badnaa. Waxayna maxaabiista ku ridi jireen qolal xiran oo ay u isticmaali jireen sunta gaaska si ay u ogaadaan dhaawaca ku dhici kara sanbabada bini'aadamka.
taas oo iyaga dhankooda ka ahayd cilmi baaris. Xaruntani waxay soo saari jirtay balaayin cayayaano ah oo xambaarsan cudurka halista ah ee daacuunka. Cayayaanadani laguma tijaabin oo keliya maxaabiista xarunta ku dhex jirta. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Japan ayaa dhowr jeer tegay magaalooyin ku yaala waddanka Shiinaha oo aad u dad badan, waxayna cirka ugu soo daadin jireen qamadi iyo waraaqado ay ku dhex qariyeen cayayaanadii cudurka daacuunka xambaarsanaa. Natiijadu waxay noqotay masiibo baaxad weyn leh. Cudurka daacuunka ayaa ka dillaacay magaalooyin badan, cudurkaasoo galaaftay boqolaal kun oo qof oo rayd ah. Waxaa xusid mudan in cutubka 731 aanu ahayn goob shakhsiyaadka waalan oo dambiilayaasha ahi ay ku dhuumanayaan. Waxay ahayd mashruuc rasmi ah oo dowladda Japan ay taageerto, isla markaana ay ka shaqaynayeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta, macallimiinta iyo saynisyahanada ugu caansan dalka Japan xilligaasi. Dadkani waxay ahaayeen kuwa ka soo qalinjibiyey jaamacadaha ugu waaweyn ee adduunka, waxayna xaruntan u arkayeen fursad dahabi ah oo ay ku sameeyaan cilmi baaris dhif iyo naadir ah oo aan weligeed dalalkooda ama meelo kale laga ogolaan lahayn. Tirakoobka rasmiga ah ee dadka ku geeriyooday halkaasi waxay u dhexeeyaan 5,000 ilaa 10,000 oo qof, dadkaasoo u geeriyooday jirdil iyo kiimikooyin qaldan oo jirkooda lagu duray. Sanadkii 1945 markii ciidamadii Midoogii Soviet ay ku soo duuleen Manchuria, Shiro Ishii wuxuu bixiyey amar degdeg ah oo ahaa in la burburiyo xarunta oo dhan. Dhismayaashii waa la qarxiyey, maxaabiistii nooleed ee soo hartay waa la laayay si aanay markhaati u noqonin. Laakiin markii ay yimaadeen ciidamadii Mareykanka, waxay ogaadeen sirtii ka dambeysay cutubka 731. Halkii laga filayay cadaalad, Mareykanku wuxuu go'aansaday inuu heshiis la galo dambiilayaashan. Dowladda Mareykanka waxay Shiro Ishii iyo kooxdiisa siisay damaanad buuxda oo ah in aan weligood la maxkamadeynin, iyaguna beddelkeeda waxay ku wareejiyeen Mareykanka dhammaan xogtii cilmiyeed ee ay ka heleen jirdilkii bani'aadamka. Shiro Ishii wuxuu u dhintay cudurka kansarka sanadkii 1959 isagoo xor ah, halka qaar badan oo ka mid ah dhaqaatiirtiisii ay jagooyin sare ka qabteen jaamacadaha iyo isbitaalada Japan. Taariikhda cutubka 731 waa dhibic madow oo weligeed ku yaali doonta waraaqadaha taariikhda aadanaha. Waxay inoo cadaynaysaa in cilmiga marka laga saaro anshaxa iyo naxariista bini'aadantinimada uu isku bedelo hubka ugu halista badan ee koonkan. Inkasta oo dambiilayaashu ay adduunka ka tageen iyagoo maxkamad marin, xasuusta dhibanayaasha, kuwii loogu yeeri jiray magaca Maruta, weligood ma tirtirmi doonto. Aragtidaada inoogu reeb qaybta hoose ee komentiyada. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo bir. Haddaad horey nala joogtayna, fadlan muuqaalka like saara oo la wadaag asxaabtaada. Mahadsanidin daawadayaal.